maalin wanaagsan saaxiibadana qiimaha badan meel walba joogtaan in ku soo dhawaada wararka ciyaaraha ugu weyn oo soo qaadan doona haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir muuqaalkana gaarsii saaxiibadada meel walba ay joogaan. Waxaan ku bilaabi doonaa kabtanka Argentina Lionel Messi ayaa sheegay inuu ku dhow yahay inuu ka fariisto kubadda cagta caalamiga kadib markuu barbareeyay rikoor hore u dhigay xidiga Cristiano Ronaldo. Messi oo 37 jir ah markaan ku guuleystay 2 Copa America iyo 1 Copa Adduun ayaa ku soo laabtay xulka qaranka Argentina kadib dhaawac anqowga ah oo ku seegay 2 kulan. inkastoo Messi wali qaab ciyaareed wanaagsan uu ku jirin ma xaqiijin karo inuu sii wadi doono inuu sii ciyaaro xulkiisa ilaa Koobka Adduunka 2026. Messi wuxuu muujiyay heerkiisa sare mar kale isagoo saddexleey dhaliyay 2 caawin sameeyay guul 6 gool ka adkaadeen Bolivia. saddexleedii ka dhaliyay Bolivia waxay ahayd tii 10aad heer caalami taa ka dhigaysa inuu barbareeyo Ronaldo leh tirada ugu badan saddexleey ciyaaraha caalamiga. ciyaarta kadib Messi ayaa qirtay inuu ku dhow yahay dhamaadka xirfadiisa ciyaaraha caalamiga. wuxuu sheegay aad ay ugu wanaagsan tahay in halkan lagu ciyaaro anigoo dareemaya jacaylka taageerayaasha Argentina. Waxaan ku faraxsanahay inaan maqlo sida uu amaanayaan magaca aan wato. wuxuu intaa ku daray maanan dejin taariikh ama waqti ku saabsan mustaqbalkayga. waxaan kaliya ku raaxaysanayaa waqtigayga waan kan dareen badanahay sidii hore. waxaan la dhaxsanahay jacaylka dadka ay muujinayaan sababtoo ah waxaan ogahay in tani noqon karto ciyaarteyda ugu dambeysa. saddexleedii Messi ayaa keentay tirada goolashiisa Argentina gaarto 112 gool halka Ronaldo uu dhaliyay Portugal 133 gool. dhinaca kale Manchester laacibkeeda Marcus Rashford ayaa lagu taliyay xilligan oo ka dhaqaaqay kooxda Red Devils. Rashford ayaa lagu booriyay inuu soo tago Manchester iyadoo Paul Krasgen kula taliyay inuu horyaal kale oo banaanka u dhaqaaqo si uu hagaajiyo xirfadiisa. Rashford 26 jir ah ayaa la daalaa xaalad adag 30 gool u dhaliyay xilciyaareedkii hore. wuxuu ku dhibaatooday inuu dib u muujiyo qaybciyaareedkiisii wanaagsanaa isagoo kaliya 8 gool dhaliyay. xidiga United bandhigiisa ugu fiicnaa xilciyaareedkan uu soo bandhigay intii lagu guda jiray barbareey 3 gool la galeen Europa League. FC Porto bishan horaanteedii korinta waxa laga saaray safarkii Crystal Palace. wuxuu ku dhibaatooday inuu muujiyo bandhig wacan ciyaarihii ka dhanka ah kooxaha 20 Tottenham taa oo dhalisay dhaleecayn badan. waraysigu siiyay Sport Cousin ninka lagu magacaabo Gazzaniga ayaa yiri shaki ma jiro Rashford inuu yahay xirfadlaha halis ah. waxa ila wacan inuu hayaamo ama ka tago United. waan jeclahay qaybciyaareedka Rashford waxaan arkay inuu yahay ciyaaryahan cajiib ah laakiin uma qalmo ama uma muuqdo meel xil iska saaray horumarkiisa xilligan inuu gaaro. waxaan kula talin lahaa inuu isaga dhaqaaqo kooxdan oo ka tago ama warasada koox kale. iyo toddobaadkan la ciyaari doona mid kamid ah kulamada ugu adag Premier League waxay la kulantay walaac dhaawac ka hor kulanka Liverpool iyadoo 4 ciyaaryahan durba laga saaray liiska ciyaartooyda Liverpool. Reds ay ku soo laabanayaan tartanka Premier League Axad halka ay Anfield ku martigelin doonaan Chelsea. Alex McAllister oo dhaawac ku baxay intii lagu guda jiray guushiisa gool iyo Crystal Palace ayaa sagay barbaraar Venezuela Argentina laakiin wuxuu ku soo laabtay safka koobaad kulanka Argentina 6 gool ku xasuuqeen Bolivia. Curtis Jones ayaa sidoo kale seegay ciyaarihii xulka Ingiriiska sababtoo ah noqday aabe markii ugu horeysay. waxaa ku jiray caafimaadka Wataru Endo oo ku seegay ciyaartii Japan Australia. haddii Endo ku soo laabtay xanuunka Liverpool ay xaqiijinaysa in Alisson dhaawac ka maqnaan doono halka Harvey Elliott aan weli diyaar u ahayn inuu ciyaaro iyadoo weli warka ugu dambeeyay laga sugay xaaladda Federico Chiesa. dhanka Chelsea 4 ciyaaryahan ayaa rasmi looga saaray kulanka. Marco Correa Wesley Fofana ayaa ganaaxan kadib markii qaateen jaalii shanaad xilli ciyaareedka intii lagu guda jiray barbareey gool Nottingham Forest. Omar Kilman ayaa weli dhaawac muruqa uga maqan kooxda halka Khalid Kumeka sidoo kale shaki ku jiro kadib markii uu sheegay labadii kulan ugu dambeeyay xanuun awgiis. Captain Reece James ayaa ku soo laabtay tababarka balse waxaa la filayaa inay yartahay fursadiisa inuu ciyaaro kulanka Liverpool. kan ayaa maanta ciyaaraha ugu weyn saaxiibayaal gaarsiiya saaxiibadiina kale.